waxaan leenahay gabdhaha reer Khaatumo reer Laascaanood waa idinka guddoonay 46 geel ah SSC waa Puntland waa SSC waa garab iyo gaashaan bay isu yihiin kusugannahay degmada Carmo ee Puntland anagoo ah gabdhaha SSC Khaatumo waxaanu halkan ku wareejin doonaa xoolahan ugu talagalnay ciidanka Puntland ee Kuuraha Armsad ka dagaalamaya waxaanu ku wareejin doonaa heer wasiir ilaa xildhibaanada guddida taakulada ciidanka Puntland agabkan oo aanan hadda kaliya aanan keenin tribkii horena aanu keenay dhiigii iyo hanti kale aan ugu talagalnay ciidanka markii ugu horeysay iyo markii ugu dambeysay midna maaha waanu ku soo noqon doonaa culayska jira darteed waxaanu go'aan ku gaadhnay ilaa inta guul laga gaari doono buuraha cadowgu degay ee ajaanibta ee weerarka ee nafta iyo dalka iyo dadkaba ku soo weerar tagay inta laga safaynayo gabadha Puntland iyo TSC waxay u taagan yihiin inay garab istaagaan ciidankooda meel kasta ku sugan yihiin waxaan odhanahay qofkii Soomaaliya dhiig Soomaalinimo ku jirto ha garab istaaga ciidanka Puntland degmada Carmo waxa kula wareegaynaa taakuladii labaad oo ka timi SSC Khaatumo degmada Laascaanood waxa garabka ka taagan gabdhihii SSC reer Khaatumo oo reer Laascaanood intaanu goobjoog wahay markii saddexaad aan kala wareego inta halka ku socday waxaan leenahay gabdhaha reer Khaatumo reer Laascaanood waa idinka guddoonay 46 geel ah tribka wara ballan qaadeen marka raashinka iyo keenaysan xoolaha inaad geel keenaysan waa ku mahadsantihiin waan idinka guddoonay waxaan leenahay idinku bashaareynaa SSC waa Puntland waa SSC waa garab iyo gaashaan bay isu yihiin hadba dhinacay ka jiro baa loo soo gurmanaya insha Allah